الكاذبون على المدى حذاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا واني سلامي isku soo noqod dambe maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa qaabka folder connection loo waxeeyo waayo applicationada kale way ka duwan tahay arkigiisu oo ma soo qaadan kartid maxaan ku leedahay datadaada amba xogtaada iyadoo oo connection folder aad u sameeyno soo qaadan kartid marka folder connection-ka waa meeshii datadaada aad ka soo qaadan lahayd oo application-kuna uu garanayo ama software-ku garanayay marka laba qaab baa loo sameeyaa folder connection-ka insha Allah waxaan guda gali doonaa macnaheedu labadii qaab loo sameeyo kow lambarka koobaad amba qaabka koobaad ee loo sameeyo waxa weeyaan halkan aad tagaysaa add data ay ku qoran tahay ayaa tagaysaa kadib add data marka aad tagtid waxaad tagaysaa halkan aad tagaysaa connect to the folder marka aad tagtid waxaad dooranaysaa meeshii xogtaada kugu jirtay ayaad dooranaysaa anigu gaar ahaan waxay ugu jirtaa my document bay ugu jirtaa marka my document-ka taabanaysaa imika waxay ku iisoo fadhiisatay my document-kii buu iisoo fadhiistay qaabka labaad amba loo sameeyo folder add folder-ka amba connect to the folder-ka xaggan aad taabanaysaa catalog ayaa tagaysaa kadib waxaad tagaysaa xagga connect to the folder baad tagaysaa kadib waxaad dooranaysaa meesha xogtaada kugu jirtay haddaba xog labaad waxay iigu jirtaa sejc kadib okay man odhanayaa marka waa sidii labadii folder-ka loo soo qaadanayo connect to the folder-ka marka insha Allah intaasaan ku joojinaynaa maanta casharkeena waxaan niga codsanayaa insha Allah in aad videogan sii share garaysiin like garaysiina subscribe-kana taabatiin sidaad ula socotiin videodaasha dambe oona u share garaysiin si ay dadka walaalahayna ee raba si uga faa'iideystaan يدفعون دماءنا أضعافها يوم بيوم والدم استحقاق.